xadhiga gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliland Maxamed Aamin waa sharci darro xisbiga wadani wuxuu ku eedeynayaa inuu yahay sharci darro xiriirka kubadda cagta Soomaaliland sida loo doortaa waa caddahay xiriirka kubadda cagta Soomaaliland uu ka madax banaayay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha sida Sonsof iyo Solcha oo kale ay ugu madax banaan yihiin iyo sida Solcha ay ugu madax banaan tahay wasaaradda warfaafinta xiriirka kubadda cagta Soomaaliland qodobkiisa 19aad wuxuu dhigayaa xiriirka doorashadiisa waxa qaban kara gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliland kuna dhawaaqi kara hadii aanu ahayn murashax tartamaya hadii uu murashax yahayna waxa doorashada qabanaya xogayaha guud ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliland meel allaaliyo meel ay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaruhu ay kaga qoran tahay xiriirka dastuurkiisa iyo inay doorasho qabataa maba jirtaba tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo ay jirto burbur ka muuqda xiriirka kubadda cagta Soomaaliland xilli aanu jirin xiriir kubadda cagta oo shaqeynayaba hadii ay kooxaha kubadda cagta iyo gobolada ka socda ay maanta isqabsadaan yaa u garqaadaya yaa la isku imanaya xiriirkii u garniqi lahaa ma jiro gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliland waxa loo dhacay gurigiisii waxa la qaatay hanti waxa la qaatay gaarigii xiriirka kubadda cagta Soomaaliland oo gurigiisa yaala ayaa saqdhaxa inta loo dhacay wiish lagu qaatay mas'uuliyiinta wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha waxaanu u sheegaynaa inaan la aqbali karin in khalkhal la geliyo tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland ee hadda la sugayo ee loo diyaar garoobayo wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Mirabos waxa uu isku dayayaa inuu khalkhal geliyo nabadgelyada habsami u socodka tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland sharci darro ayuu ku xidhan yahay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliland waa in la soo daayaa waa in la ilaaliyaa wax walba oo khalkhal ku geenaya tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland garoonkii kubadda cagta Soomaaliland Hargeysa hadii la sheego mas'uul inaanu lahayn oo waa kii gudoomiyaha Faysal Waraaba sheegay sidoo kale ma laha saxadii caafimaadka ciyaaryahanada Soomaaliland naftooda halis gelin mayno waa in caafimaadkooda iyo meesha ku ciyaarayaan iyo halkay ka cabayaan iyo waxay cunayaan waa in caafimaadkooda la sugaa xadhiga loo geystay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliland waxay carqalad ku tahay habsami u socodka tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland waxa jira codad dhaadheer iyo qaar hoos loo dhigayaba oo aad iyo aad looga soo horjeedo xadhiga lagu la kacay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliland Maxamed Aamin sidoo kale waa murashax u taagan golaha baarlamaanka Soomaaliland diyaar wuxuu yahay inuu qabto doorashadii xiriirka kubadda cagta Soomaaliland saacadatu wasiir ka yeelimayno in tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland aad khalkhal geliso dhalinyarta Soomaaliland waxaan u sheegayaa meel walbay joogaan iyo kuwa gobolada ka soo socda in maanta wasiirkii dhalinyarada iyo ciyaaruhu uu isku dayayo inuu joojiyo